musharax xildhibaan Hirshabeelle Cabdullaahi Cabdi Sandhiil ayaa u taagan xilka baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle kula kulmay beeshiisa. ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe Ciidiid Maxamed Cabdulle. wiilkan dhalinyarada ee aqoon-yahanka aniga ka ganacsata ahaan ka gudoomiye ahaan waxaan rabaa inaan si shakhsiya iyo si guud aan u garab istaago aqoontana aan soo dhaweyno jahli iyo aqoon markay isgarab istaagaan aqoon aan qaadanayna aqoontaana wax ifisa aqoontaana wax bedesha waxaan rabnaa bulshadan maanta waxaan ku arkayna aqoonti bedeli laheeday iyo sharciga looga bedeli lahayd dadka hindis lahayn oo kamid noqday insha Allah taala waana garab istaagayna inkastoo Hirshabeelle aan naqaano mujaamaladeedu ay iska badan tahay oo aqoonta aan xildhibaanada Hirshabeelle ku jira aan sida badan aqoon lagu soo xulan waxaan rabnaa inaan xildhibaano qurxanaana dadka ugu xildhibaano aqoon fiicnaano sidii wadaadkan oo kale ninkan dhalinyarada waa nin ka turjumi kara beeshan masiirkeeda hadaad fiiriso muuqaal ahaan iyo aqoon ahaan iyo base ahaanba marka aniga ka Ciidiid ahaan waa soo dhaweeyha waxaana jeclahay marka shaqooyinka loo tartami kara ama la tartami karo waxa jira wax la yiraahdo short list oo la sameeyo oo markay 5 qofood soo istaagto in labada ugu qatarsan inta la soo bixiyo aana ku daalin waxa kale labada ugu qatarsan ee qualify-ga ah ee islaana labadan wax ka dambeeya ma jiraan inaan horta short listiga ku darna asiga oo waxa jeebka la isaga riday aan lagu darino short listiga gaarka ah horta asiga lagu daro oo la yiraahdo yaa labeeyo la tartamaya aan dhahno samaxayla nin gurigiisa ka soo kacay ee jaakadiisa garabka soo saartay ee habaru ayna iskoolka soo dhiibin ee aan lagu soo daalin ee aan wax la soo barin ee aan ummad hogaaminteed soo baran inaan qof inta soo cilmiga soo baratay meel soo istaagta aan barbar dhigno cadaalad ma ahan aan rabnaa marka in aqoontu hormarto wiilkaana laga dhigo first qofka ugu horeeyo oo aan horta short listiga ka saarno asigoo aan dhahno kadibna aan dhahno thumma man yaa ka xiga waxaan kula dardaarmaa in beeshan uu ku hogaamiyo hogaanka wanaagsan aqoontu ay taliso masiirkan hadda beeshan aan u jeedno burburka kala jabka ku jira inuu ka bixiyo iyagana xaq ay leedahay cadaalada markii la yiraahdo Abi Talib aad ku waxa la weydiiyay cadaaladu maxay tahay markaas uu wuxuu cadaaladu waxay tahay shayga qofka xoog galana oo san xooga ku qaada karin kan tabarta daranna oo san tabar darro ku weeyay waxaan rabnaa qof walba oo beeshan kamid ah inaysan tabar darrana wax ku weynin xoogna aysan wax ku qaadan xildhibaankuna inuu intaas nagala shaqeeyo waana ku soo dhaweeyayna ugu dambeyn waxaa taariikhdiisa soo bandhigay xildhibaan Cabdullaahi Cabdi Sandhiil oo ka sheekeeyay halkuu wax ku soo bartay iyo deegaanka uu ku dhashay sidoo kale wuxuu ka codsaday in lagu taageero codkooda ayna siiyaan waxaan rabaa marka hore inaan idin sheego magacayga boqolkiiba 80 wasnaqaana laakiin waxa ka muuqda meesha wajiga cusub magacayga waa Cabdullaahi Cabdi Sandhiil ahna musharax u taagan qabashada xilka xubinta xildhibaanimo ee ay leedahay qowmiyadda aan hortaaganahay aqoontayda garaad waxaan leeyahay master degree oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo law qaanuun ka dalkan bartay waxaan ku dhashay afarta deegaan beeleed afar tuulo ma dhihi karo waxay u soo gudubtay inay noqoto degmo noqdaan u soo gudbeen meeshaas ku dhashay xamar waxaan u aaday waxbarasho waxaan ka imid deegaankayna aan ka imid waxaan idinka codsanayaa si sharaf leh niyad sami leh in aadan iigu simina kaliya jeebkan gelinee la iga soo saaro la iguna aamino masiirka qowmiyadda beesha aqoon yar taasoo aan aaminsanahay in aan ka qabo karo wax weyn waxaan soo bartay cilmi waxaan ugu talagalay in cilmigii aan bartay uga faa'iideeyo dadka iyo deegaanka aan ka soo jeedo sidaa darteed waqtiga gabangaa ah hadaad igu aamintaan xilkaas ee aan qabto waxaan ku shaqay doonaa anigoo ilaalinaya mabaadi'da dawladnimo anigoo horumariya deegaanka anigoo qaadanaya go'aamo wadaan ogol ah kaasoo qof kasta iyo xubin kasta oo ay khusayso laga raali gelinayo sida uu sheegay gudoomiyuhu caadil loo baahan yahay
equal rights waxay noqon doontaa haddii la xuquuq siman qof kasta oo kursigaas iskale waxay heli doontaa haddii ilaahay yiraahdo oo ugu aamintaan xilkaas inay xuquuq siman hesho si caadil ah ugu shaqeeyo biidnillaahi tacaala waxaan rabaa markii la joogo xaaladaha noocan ah ama colaadaha ama arrimaha xasaasiyadda waxa lagu soo gudbiyaa xogtaada ama farsamadaada oraah yar oo tix ama turaab waxaan idinka codsanayaa in wax dhiga isiisay idinka raali in dhex geliyo haddii ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay xilkuu macaan yahay walaaltinimadu way ka daran tahay meertaduna way qaraar tahay maalmaha doorashooyinka musharaxiinta oo idil anigu aan ka mid ahay oo waa wada mudannahay aniguna raggaa mudan ninka ugu mudan ka sii mudanahay maalmaha doorashooyinka maskax caafimaad qabtiyo rag mudnaanta taabtaa moodi kartaa waxaan rabaa marka inaan tafsiiriyo eraydaasi ragka waxaan ku soo koobay ehelaan nahay qaraabaan nahay aniga haddii maanta la yiraahdo hebaa la siiyey waa inaan ku qancaa waa in aan la kala irdhoobin waa in la helaa dad li aqli u saaxiib ah oo ehelka kala celiya qoftii mudan siiya kii aan mudayna tomorrow biri balamiya ma ahan marka waa idinku daaliye marka waxaan ku soo gabagabeynayaa in aad siniya samilah codkiina ay siisaan idinkoo raalli ah biidnillaahi albaari waxaan ballan qaadayaa aniguna haddaan noolahay oo xilka ilaahay u guuleeyo inaan si cadaalad ah dalka diinta dadka danta guud iyo midda gaarka aan leenahay aan ka shaqeyn doono biidnillaahi albaari waa mahadsantiin